دكتور طلي وحالكم كوجود ديارة لا بقول يصدق هي طبعا إذا كي كهول قلي لها قيبت بوليسكا قبلك أوضل taliye ku-xigeenka labaad ee ciidanka bilayska Soomaaliland Daahir Cali Wacays iyo saraakiil sare oo ka tirsan taliska ciidanka bilayska Soomaaliland ayaa maanta soo gaaray magaalada Boorama waxaana mas'uuliyiintani ay tageen xarunta saldhigga dhexe ee bilayska ee magaalada Boorama halkaas oo ay salaan sharaf ka qaateen taliyaha ciidanka qaybta iyo mas'uuliyiinta ciidanka bilayska ee gobolka Awdal ee ka hawlgali lahaa aba u diyaara in وديار قروجي دورشة فوضى ينقصوا هيسا أول باي كستانو ديار هين وح فوضى وح دول كنا جاي له بتشرته ديار بانو نحي إذن كرا كسر هذا وحي وانا يوحشاك ناستا سيدا على كيسان عيدن كوحو دياري هاي hawlgalkii inagu soo food lahaa doorashada madaxtooyada oo ay muddo kooban inooga hadhayo ciidan diyaar u yahay halkaysaan iyadoo si loo xoojiyo ammaanka hawsha inagu soo food oo ciidanku diyaar garoobay saa taliya qaybtu sheegay waxba kama yaana ciidanku waa diyaar inuu adkeeyo hawsha doorashada oo si nabadgelyo ay u qabsoonto iyada oo ciidanka booliska ay kala qayb gali doonaan hadii alla yiraahdo oo hawsha laga wada qayb gali doono ciidamada kale qalabka sida Jamhuuriyadda Soomaaliland way ka qayb galayaan waxaana runtii aan u sheegaynaa bulshada iyo asxaabtaba in aad iyo aad loo adkeeyo oo xasiloon aad loo dhowro si hawsha ayay nooga wax qalad ah inoogaman waxaan ciidanku runtii u diyaar garoobay in wixii khalada carqaladaynaya ammaanka aw ciidanku gacan biro ku qabto isagoo kaashanaya dadweynihiisa oo gacankeeda dadweynaha in wixii carqalad inagu keenay hawshaasi inaga carqalayn doorashada abniga xasilintiisa diyaar u yahay ciidanku in gacan bir lagu qabto bulshaduna sidii hore baan looga bartay diyaar bay yihiin iyaguna in ay ciidankooda ay gacan siiyaan intaas ayaa hawshaasi aan ugu soo loogu diyaar garoobay Axmed Dariic Iltire warbaahinta SBC magaalada Boorama